oo lagu dhex jiro haddaba walaalayaal inta markaan ka imaado waxaan u imanayaa mowduuca ah cilaaqada aan la lahayn in wadanka Qatar iyo Kuwait iyo Khaliijka iyo sida ay xukuumadda Djibouti u dhaqantay iyo xukuumadda Soomaaliya labada siyaasadood biseelka u kala dhaxeeya iyaan natusaya horta marka hore waxaad ogtihiin in Soomaaliya lacag aad u fara badan loo bandhigay oo wafdiyaal waaweyn oo Khaliijka socdana ay tageen laakiin mowqif ay ka qaateen sidan kale taa waxay dhahaan marka koobaad horta annagu waan baahannahay wariga baahida aan baahannahay waa baahi culus waa baahi ay dawladnimadaydi duntay macdaalika waxaan qarar qaadanay inaan lacag qaadan oo walaalnimada ilaalino mowqifka waxa amaanay aqoonyahanka adduunka jooga oo dhan iyo amaanay aqoonyahanka Soomaaliyeed oo dhan ba amaanay bal waxaan aad ugu farxay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo mowqifka iska taagay nafsil mowqif sida Sheekh Shariif oo soo saaray bayaan aad u qurux badan oo 7 bundi leh oo ay kamid tahay inuu ku garab joogo dawladda mowqifka dhexdhexaadnimo ay qadatay oo ah Qatar iyo Kuwait iyo Sacuudiguba inay yihiin saddex wadan oo walaal ah oo Carab ah oo Muslim ah oo in mida inoo wada jira inay yihiin oo inaan kala raacno aynan suubaneyn aynan wanaagsaneyn wax tarkana hadii la yiraahdana laguba kala horeeyaba taas bay ahayd maaratay ta ay qaadatay dawladda Soomaaliya oo u beerisay maaratay wixii ay miisaankii dawliga ee adduunka ku lahaayeen u beerisay ku tustina qaraarka dawladda Soomaaliya inay ku jirto gacanta Soomaaliya ayna ku jirin gacan dibadeed wadanka Djibouti waxa ka dhacday in maaratay wafdi aan loo soo dirin laakiin telefoon loo soo diray telefoonki ay ku keentay inay safiirkii 10 saacadood kaga soo bax wadanka la dhahdo oo hoos loo dhigo diblomaasiyadii Djibouti iyo Qatar u dhaxaysay arinta si cilmiga looma diraasin maxaa yeelay arintaas waxa ay leedahay saddex arimood oo halis ah oo siyaasiya koow waxay leedahay dawladda Qatar dhinaca ciidanka Ethiopia ciidanka Eritrea ciidanka Djibouti oo isku horjooga xuduuda waxay keentay ciidan kala dhex fadhiya iyadaana noqotay dawladda inay heshiisiisa ahayd arintaasi maxaa ka dhici doona la isma weydiin oo arinta koowaad ee khaladka la galay arinta labaad ee aan la isweydiin waxa weeye wadanka Qatar wuxuu leeyahay cilaaqaad caalamiya oo dawli ah wuxuu leeyahay dadka naajixa ku ah waxa loo yaqaano dagaalada in la dajiyo in isaga la soo weeraro maaha wadanada isweerarayo dhan buu ka qayb galaa inuu dajiyo Lebanon buu soo dajiyay Afghanistan buu soo dajiyay Soomaaliya imika galay shabaab iyo maaratay Soomaaliya Djibouti wuxuu dhex galay Eritrea Ethiopia iyo Eritrea uu dhex galay wuxuu kala dhex galay maxaan ku dhahdaa Pakistan iyo Hindiya wuxuu kala dhex galay wadanada ku yaala America maaratay koonfurta Mareykanka ku yaala qaaradda America waxaas oo dhan buu galay waa dawlad indha dheer ku haysata dajinta siyaasadka waxaana lagu kalsoonaa in aynan dawladda Sacuudiga iyo dawladda Imaaraadka iyo kuwa raacay oo dhan inaynan ku guuleysanin talaabada ay qaadeen xataa dawlado waaweyn ha ka dambeeyaan maxaa yeelay waxay leedahay saaxiibo waaweyn oo dawlado ah oo arinta fashilin doona marka arinta lama fiirsan arinta saddexaad ay dawladda Djibouti ayna ka fiirsan waxa weeyaan inay dawladda Qatar ay noqotay dawlad la quwad naacima waxa loo yaqaano quwadaha yar ee dadka taasiiriya jasiiraha noqoto amba gargaarka ay bixinaysa ha noqoto saaxiibada caalamka ay ku leedahay ha noqoto waa dawlad shucuubta la saaxiiba maxaa yeelay waxa israacisay waxa loo yaqaan isbedel doonka iyo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda shucuubta adduunka oo dhan baa la jirta marka dawladda Djibouti waxaas oo dhan iyadoo aan fiirin iyay cilaaqadii u goysay arinta maanta maxay keentay durbaba waxay keentay inay dawladii Qatari kala baxdo wadankeena ciidamadii u fadhiyay arintaasi kadib maxaa ka dhashay dawladii Eritrea inay ku soo xuduudii ku soo durugto oo ay imato xuduudii dhulkeenu meeshii aan lahayn ee wali aan loo kala saarin inay yimaadaan bal inay ka soo durkaan ba suurtagal arintaasi waxay keentay in annako ciidankeena intii ugu culusayd ee ugu ciidanka maarta ugu xooga badnayd ee faar loo yaqaanay ay fadhiyaan wadanka Soomaaliya oo nabadda ay maarta u tageen in ay halkaasi keento in ciidamo yar anuguna ciidanka aan leenahay in ciidamadii laga saaro caasimada police iyo military gendarme ba la qaado oo la geeyo gobolkaas aan isku haysano Eritrea in mashaakil dhaqaale oo aan qaadi karin ay nagu soo biiraan mashaakil siyaasadeed oo qaadi karin nagu soo biiraan arinta ma eegin arin kale jirto oo maanta Djibouti adduunka u baahan maaha in adigu u baahan tahay wuxuu oran kariyay dawladdu waxay oran karaysay wadanka Imaaraadka iyo Sacuudiga anuu ma goynaya Qatar waxba annaka uma baahni maanta Sacuudiga iyo Imaaraadka
iyaka inoo baahan iyaka inaga dhulka nasiya maanta meel aan ciidan fadhiisano iyaka ku jira dagaal international iyaka ku jira dagaal iqliimi oo maarata gobolka ah iyaka ayaa doonayo iska takhalusay carabtu marka adiga ma aha kii u baahnaa ee waxa ahayn iyaka ku baahnaa sida uu yiri Sheekh Shariif carab ninka daba nashleeya wax ma siiyaan ee ninkii isku soo taagay wax u taraan saadaraadid ba ogtahay maanta wafdiyaasha sida ay ugu imanayaan magaalada caasimadda Muqdisho ee loogu baratamaya talaabada ay xukuumadda Soomaaliya ay qaadeen adiguna marka ugu horeysa telefoon lagu soo diraba waxa tiri hay maxaa yeelay nin tukaan fadhiyo caraabo dilaala kolba kiida wax badan siiyo ka qaadanaya macna kale uu leeyahay ma jirto marka khaladada inta leeg iyaa ka dhacday meeshaasi maanta waxa la leeyahay dagaalkii qatar lagu hayay marka lagu eego cilmiga political science-ka waxa ku guuleysatay qatar maxaa yeelay waxa fashiliyay Jarmalkii waxa fashiliyay Shiinihii waxa fashiliyay Ruushkii waxa fashiliyay Faransiiskii waxa fashiliyay Belgiigii waxa fashiliyay dawladii Scandinavian waxa fashiliyay Afrika gobolka aan ka tirsanay anagu Djibouti ka bitay Soomaaliya way diiday Ethiopia dhadhaxaad bay noqotay Suudaan dhadhaxaad bay noqotay Kenya dhadhaxaad bay ka noqotay marka waxa weeyaan حتى كونفورت السودان أريتها dhadhaxaad bay ka noqotay wadanka quraata ee raacay Djibouti bay noqotay marka حتى igaadkii yaa ka dhaxbaxnay waxaan kaloon ka dhaxbaxnay Afrika oo dhan Afrika dhowr wadan baa u yeeray oo mowqifkeena qaatay intii kale oo dhan way diideen wadanadii carabta oo dhan waxaan masar ahayn iyo maaratay khiftar ma Liibi ma xukumo waa nin weeyaan iyo maaratay Yemen ninka xukumay meesha fadhiyo wadanka aanan u fadhinoo Sacuudigu mishaar siiyo mooyaan wax kale oo qarar ka qaatay ma jiro maqribkii oo dhan Mauritania marka laga reebo way diideen Maroc Algeria Tunisia wadanadii culus oo dhan way diideen wadanadii kale ee carabtaha ee maaratay xataa khaliijka ku yaal Kuwait oo dawlad dimuqraadi culus way diiday saldanatu Oman way diiday waxaad ogtihiin isbedel baa dhacay marka Turkiga oo ciidan keenay raashinkii la soo gaaray Iran baa keentay raashinkii isbedel siyaasadeed baa mandiqadii ka dhacday marka isbedelkaas siyaasadeed maxaawirtaas diraysa annagu kamid ma ahayn laakiin waxa dawladda xad ku faantaan ahayn wixii oo dhan qaladadaas dhacay marka qaladaas waxa u baahan ikhwaani fillah in ay dawladda Djibouti haday gudaha ku khaldamaysana waxa ka sii daray inay dibadda ku khaldamayso waxa weeyaan cadu badan bay wadankeena u sameynaysaa waxa u soo jiidanaysaa indha fara badan waxaad ogtihiin meeshan la yiraahdo mujammaca la yiraahdo ee ku faanto dawladda Djibouti Kuwait baa dhisay dhacdo xaqiiqada inay sheegaya anu waan ogahay Kuwait waxa ka dhisay jamciyadda dhista Kuwait ku taala laakiin dadka dhisay waa reer Qatar meeshaas oo qurux badan ee dhakhtar kale ee waxa leh dumar reer Qatar ayaa dhisay dumar la yaqaano oo magacadoodana ay soo dhigi doona maalinta dambe magacadooda waa dumar la yaqaano oo reer Qatar oo tujaar ah iyo meesha dhisay aan fadhino ee wadankeena lagu faano ee aqoonta lagu hayo kumaanku qofa markaas waxa weeyaan taabay dhistay waxa weeyaan jamciyad bay hoos bay Qatar al-khayr raado waxaad ogtihiin cilaaqaadka ay dawladdu la lahayd ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo heer sare iyaduna mareysay waxaas oo dhan waxa lagu dumiyay qaraar yar oo macna uu leeyahay ayna jirin kartibaan u lahayn in Sacuudiga saaxiib lahaano Qatarna la saaxiib ahaano Kuwaitna la saaxiib ahaano Carabtana dhan la saaxiib ahaano maxaa yeelay annaka waxay noo yihiin wax quraatay annaka shalay toole Imaaraadku cilaaqada noo jartay oo ay laga joojisay inaan Dubai tagno uma baahnaan badiil kala heli kareynay dagaalkuna waxa kamid ah waxa Dubai la cabaadaysa wax weeyaan waxa la furayaa maaratay boor amba dikir la yiraahdo Ahmed ad-Dawli oo la baratami doona Dubai ad-Dawli marka dagaal dhaqaale oo siyaasadeed wadanadii ku dhex jiraan iyaan annaka maaratay halna aan ku lahayn geelna aan ku lahayn awrna aan ku lahayn ayaan dhex dabaalanaa wax dhibaato oo naga soo gaadhay ma ahayn wax wanaag oo naga soo gaadhay ma jiro marka waxay u baahan tahay marka siyaasadda qaranka la qaadanayo saddexdii shay aan soo sheegay kuma celinayo Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak taqabbal Allahu minna minkum salih al-a'mal waxay noogu xigi doona xalaqadii ahayd maaratay aan kaga hadlaynay 7 Juun oo maalin dhow ina suga. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.